halkani waa bartamaha wadada sida idin muuqata waxa ay ka go'day bartamihii wadada oo waa labada had dhexdoodii waa wadada xiriirisa magaalo ganacsiyeedka Wajaale iyo gobolada dalka wadadani oo ah marin muhiim u ah ganacsiga gobolka Geeska Afrika ayaa waxa ka muuqanayay 3 sano ee la soo dhaafay dayac soo food saaray dhismaha wadadani saaka ayaanu gaarnay si aanu uga war helno xaaladda dhabta ah ee ka jirta halkani hadda godkan aynu ku dhex jirnaa waa baarkinkii wadada ee dhinaca bari xigay waxay ahayd 1 mitir oo baarkin ah oo loogu talagalay in ay gawaaridu baarkin marka ay galayaan ay istaagaan balse waa ay go'day oo meesha gebi ahaanba waa ay ka baxday hadda waxa uu go'itaanka wadadani soo gaadhay daamurkii wadada la saaray oo sida idin muuqata waa halkani daamurkii ay gawaaridu marayeen waxa baaba'ay gebi ahaanba hareerihii wadada mana laha wax baarkin ah ama barxad uu gaadhigu istaago oo waxa waxyeello soo gaarsiiyay daadadkii ka dhashay roobab ka da'ayay gobolka Gabiley iyo degmooyinka hoos yimaada oo halis ayaa ay ku jirtaa wadadani waxana ay qarka u saaran tahay in ay goodo oo ay burburto isla markaasina ay daadadku la tagaan wadadani xiriirisa magaalo ganacsiyeedka Wajaale iyo gobolada dalka Somaliland sida idin muuqata waxa halkan ka soo baxaya waa biyaha koonaha shisha taagan ee koonahan kale u gudbaya ayaa dalooshaday halkan balse ilaa hadda ma helin wax dayactira wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Somaliland ayaan ilaa hadda wax dayactira ka sameyn wadadani muddo 3 sano ah ayaa ay wadadani sidan ahayd oo aan wax dayactira laga sameyn iyada oo ay horeba wadadu u go'go'nayd balse hadda waxa ugu biiray in ay gebi ahaanba burburaan hareerihii wadadu barasaabka gobolka Gabiley oo nu dhawaan wax ka weydiinay waxa uga meel yaala ka dawlad ahaan in ay dhismo ka fuliyaan wadadani ayaa noo sheegay in aan wax dhismo ah laga fulinaynin wadadani taas bedelkeedana ay soo socoto wadada Berbera corridor muddo 3 ilaa 2 sano inta ay wadadaasi ku soo gaadho magaalada Wajaale la sugayo halkanina aan wax dhismo ah laga fulinaynin waa sida uu hadalka u dhigay waxna uu yiri marinkan hadda aynu taaganahay waa marin muhiim u ah dhammaan Geeska Afrika oo waxa uu aadaa magaalo ganacsiyeedka Wajaale xaydii ka qorshaysan in aad wax ka qabataan inta aanay dhibaatadu inta ka sii badan waa si wanaagsan su'aal aad iyo aad u fiican baad ay weydiiseen dawladda waxa uga qorshaysan wadadani bari hore la sameyn lahaa waa ogtiin wadadii Berbera corridor ayaa soo socota dadkeenu wax bay orayeen wadadan maxaa loo hagaajin waayay maadaama ay wadadii soo socoto dhaqaalaheediina company lagu siiyay oo uu gacanta ku hayo haddii iminka lacag iyo hanti fara badan la geliyo dib baa loo qaadayaa haddana dhaqaalaheennii la geliyo wadadu dee khasaaru noqonaya inta inoogu timaadaba ama 2 sano ha noqoto ama sanad ha noqoto ama 3 ha noqotee waynu ku qasbanay inaynu sugno qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ee sida maalinlaha ah u adeegsada wadadani ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan inay gebi ahaanba wadadani ay burburto oo ay meesha ka baxdo isla markaasina ay kala xidhmaan magaalo ganacsiyeedka Wajaale iyo Somaliland kale kiin xukuumadii aan ka rabnay inay ummadan wadooyinka u hagaajiso oo wax u qabato ilaa imika ma hayno imika bridge-kaas uu go'aya dhammaan waxa loo barasaabkuna wuxuu lahaaba taberbere soo socota ayaan la sugaynaa bulaha maxaa la sugay imika khalaas noqonaysaa waxaan leenahay xukuumadda wadadan waxa sameeyay xirsi ninkii la oran jiray xukuumaddii siiraaya la sameeyay tan muuse imika dalka haysataa one day waxa loo ay ka qabatay wadadaasi ma jirto waa halkii aynu ka galaynay dalka Itoobiya la oranayay dekadii qalalnayd ee Wajaale way kala xidhmaysaa haddii roobkan isaaq sii wado wadanka arkaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu 3 sano wadadaas waa saasi godkii uu go'ay wadanka arkaya دمشق عندنا ما مقنع علم ما قلنا أنا مقالة كالعسيات كي إسكحولي سوماليلاند يوان إثيوبيا ودينا ودي أركيا بندي وقاضي ترى تورد على قصر كحنين جلاب على صوت أركيا ولا ولا مش كسيم وقاص هو قاريونا مرام ودنبا هذا ركيسان يمكن مدة سنة هذا عيد ومقنية عيد ومن سميتونه مشرتو دولته وحنا كعسنا وضدنا إن لقاها كاتشوا ما تعال خلا ولا تايرو كليا صاري عيدي ماشي مسؤول كي بينا وحكا قبض تصدق دقة هدي الهيدا بيه بكبحة أنت لو تايرو كلا صار أنت لبعض تاين تكهده بانا كهده وتقولي إيدين لا وحوين بس هو قارو ويدن كأركب إيدين كبوا وجدان وحندو سرد وقباقينا إن ماشين لقاها كاتشين صدق دقنا وحلو قبته إن شاء الله دي لهيدا ما تضل ماشي كايس تروح ويا شن سنة ضادي مكساسة إلى دولتي السيراية تبدأ
saasay godadku u qodnaayeen waxba lagama qaban roobku inuu soo socdana dee waa la ogaa xukuumaddu inay xil iska saartay sii tababushaysa roobuu jiray ilaa cid kale uma maqnee ayay ahayd waa la dayacay meesha waddadan ilaa kala baydh ilaa wajaale waa la dayacay aad baa loo dayacay ilaa iminka cid u dhaqdhaqaaqaysa maamuleena waxbay samaynaysaa wallaahi ma ogin laakiin waddadaas waa halbowle waa muhiim maanta haddii laga tago halkaa gaadhi kastaaba halkaas ku kala go'aya intaa haddii naloo sameeyey oo kii ka horreeyey uu sameeyey inuu kana bal wax kale yaanu ku darinbe inuu dayac tiray ahayd marka warniyow waxaan leenahay dawladda waxaa qabato darawallada isticmaala waddadan waddadan inta badan mara maalinta ka dambaysa waddadani waxbaa ka sii go'ayo way sii nuglaanaysaa iminka roobab dambe hadday da'aanna waxaa laga yaabaa inay wajaala iyo ay kala xidhantadeen iyo isku socodka dhankan kale markaa kolley horta in si degdega wax looga qabto ayaan anu ku talin lahaa waa maxamed cabdi cumar maxamuudiin warka warbaahinta SBC banka wajaale ee gobolka Gabiley